warar iskhilaafsan ayaa waxay ka imaanayaan gobolka Mudug halkaas oo la sheegay inuu weerar ka dhacay maamulka Galmudug waxa uu sheegayaa in xarun ciidamadoodu ay lahaayeen diyaarado ay weerareen laguna dilay xubno kamid ah askartooda wasiirka amniga gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuleed ayaa BBC-da u sheegay in 20 askari in ka badan ay uga dhimatay weerarka wuxuuna mas'uuliyadda weerarkaasi ku eedeeyay Mareykanka iyo Puntland wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo wareysay ayaa marka hore waxa uu weydiiyay inuu sharaxo qasaaraha dhimashada inta hadda aan xaqiijinay waa 20 askari dhaawacna waa 16 oo aad iyo aad u daran hantida la burburiyeyna waa ilaa 4 gaari oo kuwa dagaalka ah khasaaraha hadda ilaa hadda aan xaqiijinaynaa waa sidaas ay nafsinayaan saraakiisha goobta ku sugan waxaa weeye la weeraray saraakiisha deganaayeen waxaad sheegtay in weerarkan ay geysteen ciidamo Mareykan ah iyo kuwa ka tirsan Puntland waa eedayn aad u culus wasiir maxaa caddayn ah oo aad u haysaa arrintan ciidamada horta marka hore waa ciidamo isku mid ah ciidamada Mareykanku waa ciidamada waxaa weeye fariisinta u tahay garoonka Galkacyo waxaana caddaynteeda u haynaa diyaaradihii iyo milaakiicdii ay soo rideen iyo qolyihii ay dadka ku laayeen ciidamadeena ku laayeen lambaradooodii dhammaan waa layaha ciidamada ciidamada Puntland ha ahaayeen laakiin waa Mareykanka ay qayb ka yihiin waa ciidamada ay tababaraan iyagu halkaas ku hayaan waana information qaldan iyo xog qaldan waxaan muujinahay in si qaldan loo gudbiyey dhibaatada halkaasi ka dhacday waana waxay Puntland caawiday hadiya jeerna ay ku tilmaanto Galmudug iyo shacabkeeda inay yihiin shabaab halka bedelkeeda ay gabdhaad u tahay Puntland oo ay ku aadan tahay cadowga shabaab oo Galmudug waxay u aadan tahay marka information qaldan oo iyagu bixiyeen oo u socdaan ciidamada Mareykanku ciidankeena ku xasuuqeen kun laayeen dhibaato culusna u geysteen waana waxaad oo shaki ku jirin cid walba oo u baahanna waxaan rabnaa in la wadaagto xaqiiqintaas waxaana doonaynaa arrintaas haddii ilaahay guraya si degdega in ciidamada Mareykanku jawaab uga bixiyaan dhibaatada ay ciidamada u geysteen ma waxaa jira ciidan la og yahay oo Mareykan ah oo diyaarado iyo hubba sita oo degan garoonka Galkacyo fadhiisin bay u tahay garoonka Galkacyo beeska degan ciidamada diyaaradaha awooda tuqeeya meelaha shabaabka mararka qaar looga duulo qayb ay ka tahay Galkacyo waxaa weeye fariisintaas ay ka duulaan kuwa hadda laakiin duqeeyey ciidamadeena innaga hadda meel ka duween waxaa weeye meelo ka duween malihin laakiin waa caddahay in ciidamada Mareykan yihiin oo caddahay haddaan kula leena iyaga garan ba wax dhashay ku jira maamulka wararka qaar ee ka imaanaya deegaanka waxay sheegayaan in goobta la weeraray ay saldhig u ahayd ciidamo ka tirsan Al-Shabaab sidaasna uu weerarku ku dhacay marka arrintaasi maxaa ka jira maxamed ibraahim deeqo waxaa tahay doqonnimo ah in qaranada Soomaaliya iyo maamulka la aqoonaa doqonnimo ah oo la qaato information qaldan oo dad dana gaar ah ka dambeeyaan meesha weerarkan ka dhacay waa saldhig ciidan oo ciidamada dowladda Galmudug leedahay oo Galkacyo jirta 20 kilomitir shabaab xageed joogaan diinay kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuleed oo u waramayay wariyaha BBC-da ee Muqdisho dhinaca kale xiriir ay BBC-du la yeeshatay waa mas'uuliyiinta maamulka Puntland waxay sheegeen inay dib uga hadli doonaan weerarka saaka ka dhacay duleedka Galkacyo iyo eedeymaha Galmudug ee u jeediyeen Puntland sidaas si la mid ah war Al-Shabaab ka soo baxay waxa ay ku sheegtay inaysan jirin saldhig ciidamadoodu ay ku lahaayeen duleedka Galkacyo oo la weeraray dhanka dhageystayaasha aragtidooda ka soo dhiibtay waxa kamid ah Bashiir Cali Xirsi waxa uu leeyahay Hargeysa ayaan jooga 22 askari ee Galmudug sheegtay in laga dilay waa tiro aad u badan Galmudug waa in ay si hubanti leh ay u baartaa arrintaas ayuu yiri Axmed Xaashina waxa uu leeyahay Boosaaso ayaan jooga waan ka xumahay cid ka soo ka dambeysay duqeyntaasi waa in raali gelin iyo magdhow ka bixisaa ayuu yiri xalay tabaariida sagaalkii barkeednimo ayaa kala ciidamada Galmudug ku leeyihiin bariga gobolka Mudug waxa weeraray ciidamada Mareykanka diyaaradaha Mareykanka duqeyn u geysteen halkaasna waxa ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho dhaawac iyo gaadiid la gubay iyo dadkii deegaankaas oo dhamaantood qalqal iyo dadka ku dhacay sidaas dhibaatada dhacday xalay adiga baaraha sagaalkii barkii marka sidaas ay u dhaceen waxaan aaminsanahay diyaaradahaas inay yihiin arrimo information qaldan ka dambeeyey ugna ay ku leeyihiin ciidamadan BS la yiraahdo waxaa weeye Puntland ay u tabareen saladan Mareykanka ku dhigay waan u imaanaynaa cidda ku lug leh laakiin waxaad noo sheegtaa qasaaraha inta uu leeyahay iyo goobta ay wax ka dhaceen meesha lagu weeraray ciidamadiina waxaa lagu weeraray deegaan u jira magaalada 7 kilomitir dhanka bariga Galkacyo waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku reer guuraayihiin meelahaas degani dhibaatooyin iska dhici jireen inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas ka sugaan sida la ajligeed ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxa dhibkaas geystayna
waa diyaaradaha Mareykanka dadka la laayay dadka ciidanka la laayay hay'adana dhaawacay gaadiid kala guday mudane wasiir weli noomaada sheegin tirada khasaaraha iyo sida ay wax u gaareen ciidanka bal maxaad ugu malaynaysaa inay Mareykan yihiin dadka weerarka diyaaradaha weerarka qaaday waa wada taasi waa caddahay waxa dadka ku jira maande mas'uuliyiin baan ku hadlaya waxaan xaqiijin inaan ka hadalno marabno taasi waa waxa iyaga waana qiran hadda dhibka ay geysteen khasaaruna waa 22 dhimasho iyo 10 dhaawaca iyo 4 gaari la gubay iyo dadkii deegaanka maxaa xoolaha la maqlaynaa warkooda inuu jiro dhimasho inay jirto xoolo oo deegaankaas ay magaalada ku gaartay dadkii miyiga marka sidaas wax u dhaceen marka xaalku ka jooga marka dhimashada iyo dhaawacu ma ciidamada galmudug ba mise shacab ayaa ku jiro intaan hadda xaqiijinay dhimashada iyo dhaawacu waa ciidankii meel xerada la weeraray waa xero ciidan oo meeshaas tuulada ku tilay gees ka deganaa iyaga la beegsaday marka hadda khasaarahan haynaay barakaca iyo qalqalka dadka shacabka gaaray ka sokow dhimashadu 22 iyo 16 dhaawacayba waxay ku dhaceen ciidamadii dowladda galmudug waxaad carabka ku dhufatay inaad tuhunsan tihiin inay ka dambeeyaan ciidamada PS ee Puntland arrintaas maxaa u sababa walahi dawladda tuhunsanida way caddahay Puntland waxay caadaysatay had iyo jeer inay dowladda galmudug iyo shacabkeeda ku eedeyso shabaab inay dabbaad yihiin ama ay shabaab yihiin sidaan la ajligeed waa wax cad oo shaki ku jirin inay arrintaasi ugu kulahaayeen ciidamadooda dagaalkeeda ka qayb qaateenba ma aha wax tuuna ciidamada BS-ka dagaal ka qayb qaatay marka diyaaradana duqeynta geysteen ayay afantari ku galeen meesha madrad waa gartay marka duqeyn keliya maahane lugna waa lagu weeraray marka diyaarada duqeeyeen baa lagu weeraray sidaasaa meesha dhibaatadu ka dhacday waana wax cad oo dee aan shaki ku jirin oo aanan dee malag u haynin aan yaqiinteeda hayno siday u dhaceen waana waxay maalin kasta cadaysteen shabaabna deegaanka wax ka dhaceen dee inta u jiro ciddii dee maamkii qariibo taqaana waa waxay og tahay waa shabaab loo malayn karo iyo dee meel shabaab joogana deegaanka iskaga dhiga masaafo 500 kilomitir oo isku weera shabaab deegaanadaas uma dhiga mana joogo marka sidaasaan xaaladdu u dhacday waana waxaan ognahay dhibaatadaas dee nimankani ay cadaysteen had iyo jeer ciidamada Soomaaliyeed cadowga shabaab oo dadka dilaya maalin kasta barakicinaya qarxinaya inay dad Soomaaliyeed ku eedeeyaan waxay cadaysteen oo ayagu dabacad ka dhigteen informationkaas qaldan iyo dhibkaas meesha ka dhacana qayb bay ku leeyihiin laakiin gacantaas cidda geysatay oo ciidankaas ku qalsay oo dadkaas laysay waa ciidamada Mareykanka